maanta waxaan suuqin yeeray saxaafadda Soomaaliland suuq yeeray halkan in aan iftiimiyo warar fara badan oo bariyahan dambe isla dhexmarayay oo ku saabsan xisbiga UCUD iyo musharaxiinta xisbiga UCUD oo qaarkood wararkaasina ay sababeen iscasilaadii musharaxiin madaxweynaha aqoon-yahan Cabdirashiid Xasan Mataan iyo hadaladii uu ku hadlay gudoomiyuhu shalay toole markii uu ka baxayay magaalada Hargeysa hadaladaasi kuwa ugu waaweynaa waxay ahaayeen xisbiga UCUD sida gudoomiyuhu uu yiri waxa lagu sameeyay qiimeyn dib baana loogu tartamaya taasi waa walaacas weeyaan ayaan leeyahay xisbiga UCUD tartan buu soo galay doorasho soo galay kal fadhigii golaha dhexe ee xisbiga UCUD waa ka weeyay warqadiisi gudoomiyaha ayaa saxeexay waxay ku socotaa warqadaasi komishanka qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa xeerarayha guud ee qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda asxaabta soo gudbin go'aamadii kal fadhigii golaha dhexe xisbiga UCUD waxaana ku saxeexan gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe kal fadhigaasi xilligaasi la qabtay UCUD waxa laba qodobada ugu waaweyn lagu ansixiyay waa kuwan waxa la ansixiyay heshiiskii labada garab ee xisbiga UCUD ku boobay ayaa lagu ansixiyay waxa kale lagu ansixiyay musharaxiinta madaxtooyada ku tartamay xisbiga oo halkaas ku cad oo qodobka labaad ee kal fadhiga saxaafaduna xor bay u tahay in aragto kal fadhi la galay oo golo dhexe oo fadhiistay oo sharciya in haddana uu saxaafadda ka yiraahdo gudoomiyuhu tartan baa loo gelaya waxba la qiimeynaya waa mid delqaaf oo walaacsa ayaan leeyahay gudoomiye shuruucdii xisbiga ayuu jabiyay laftirkiisu awoodiisana uu ka talaabsaday gudoomiye awood buu leeyahay awoodiisana ma aha cid musharaxa noqonaysa iyo cid aan musharaxa noqonayn xisbigu sharci buu leeyahay xisbiga UCUD wuxuu u kala qaybsamay hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta sidii aan ku heshiinay qayb baan anagu hoggaanka xisbiga ku lahayn sida Mujaahid Cali Gure xogayaha guud iyo dad lamida ayaan ku lahayn musharaxiinta xisbiguna gooni weeyaan gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa inuu xisbiga dhiso maaha musharaxiintu waxay leeyihiin xilli bay leeyihiin tartanka doorashada iyagu ay kaga qayb galaan laakiin musharaxiintu haddana inay la dhisaan gudoomiyaha xisbiga mar walba waa laga maarmaan diyaar baanan u ahay laakiin xisbigii UCUD waxaad moodaa in qoorta uu iskaga dobay gudoomiyaha xisbiga oo dhaqaaqi kar laayay mar walbana uu saxaafadda la soo istaagayo hadallo isburinaya oo khalkhal ku abuuraya maxay ahayd taageerayaasha xisbiga waana ta sababtay in musharaxaygii Cabdirashiid Xasan Mataan ee saaxiibka ahayn inuu adkeysan waayo oo uu hal ka huleelo oo isagu yiraahdo waraan uu adkeysan kar maayo oo iskaga tagay anu maanta halkan waxa ka cadeynaya anu meel la tagi maayo ninka ugu dambeeya tareenka ka kacaya aniga weeye inuu Faysal meesha iga tago mooyaan anu ugu tagi maayo maanta taa horta ha ku biicad ayaan leeyahay waa ta koowaad weeyaan xisbiga UCUD tacab baan naga galay waxa weeyaan waa la ogay sida lagu soo saaray maalintan anagu Faysal u tagnay afar qof baa la joogay Faysal Cali Waraabe xafiiska ayarna wuu fadhiyay xisbigii UCUD sidoo u dhamaa gebigiisa wuxuu ku beeray xisbiga wadani xisbiga siiro baan ka soo dhisnay bila gudahood baan intaasoo xafiis ku furnay waxa weeyaan in xisbigii la carqaladeeyo maaha in lugta la jiida maaha maanta waxa soo baxaya kolba hadallo iska wadaba oranaya anagu waxaan u aragnaa hadallada uu gudoomiyuhu ku hadlayo la 3 sanadood buu musharax ugu yeedhiyay wuxuu 3 sanadood ka hor u oran waayay ilaa intaasoo sanadood u oran waayay xisbiga waa lagu tartamaya maxaa keenay inuu maanta ku hadlo waxa keenay ana u sheegay shacabka Soomaaliland waa burbur oo xisbiga kulmiye oo dabada ka wado oo gudoomiyahana loo adeegsanayo weeyaan Soomaalida waxa ku mahamada hunguri wadkii ma arko hunguri wadkii ma arko oo waa hungurigaas war xisbiga UCUD in loo arko in la burburiyo ma dimuqraadiyadda in la burburiyo ma waan ognahay waxa jira waan la soconaa shacabka Soomaaliland oo ka wada dharagsan yahay xisbiga kulmiyana hadduu saa isugu sheegay xisbiga UCUD baa sida ku burburmaayo gudoomiye wuxuu shalay khilaaf ma jiro taas waa mid xaqiiqad ka fog weeyaan gudoomiye isaga khilaafka abuuraya mar walba hadalladan iska daba meeraysanaya oo kolba ku hadlayo waa hadallo khilaaf abuuraya oo sharciyadii xisbiga jibinaya awoodihiisana ka talaabsanaya madaxweyne gudoomiyuhu ninka ma weyna waa gudoomiye
xeerka xisbiga ay ku taala halka uu awoodiisu ay tahay nin musharaxana ma bedeli karo cid musharaxana ma keeni karo annaga kala fadhi xisbi baan lagu doortay kala fadhiga golaha dhexe xisbiga ee shanaad baan lagu doortay oo taa go'aamadeedina xeerlaalinta iyo shuruucda dalka oo dhan way haysataa dalka yaan la musharax habaabin cid bedeli karto oo ilaahay aan ahayn ma jirto xukuumadda hadduu isku halaynayo gudoomiyuhuna yaa waxaan leenahay Jamaal Cali Xuseen keligii maaha 120,000 oo cod baa xisbiga siiyay oo magacayaga iyo sharaftayda karaamadeeda ku siiyay kuwaas naga dambeeya shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda jecel baa naga dambeeya intana taageerta naga dambaysa inta dimuqraadiyadda jecel dalkan inuu meel gaadho ayaa naga dambaysa waxaan leeyahay waxaan xasuustaa kelmad qiimo fara badan leh oo madaxweyne ku xigeenkii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Ciise Jaamac oo lawyer ah uu ka yiri cadaaladda wuxuu cadaaladdu ma aha uun shuruucda maxkamadaha ee cadaaladdu waa damiirka dadka weeyaan maanta hadduu Faysal Carwaaba ku riyoonayo in xisbigii loo halgamay ee halkaas oo dhan la soo gaarsiiyay ee cid ku soo tartantay intuu aayar inta xukuumadda adeegsado aayar isaga cid looga qaadayo oo isagu uu doonayo inuu ku tartamo Faysal mar kaleeto isagoo nin weyn oo salaada tukada oo qowlna la galay waliba mid aan ka yeelin maaha mid Soomaaliland ka yeelisa maaha waxa uu Faysal yiri markii la weydiiyay heshiisyadii la galay ma kitaab quraana buu yiri haayo heshiiska waxa weeyaan waa diiniin weeyaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa la ogyahay markii uu gaalada la dagaalamayay heshiis buu la galay heshiiskaasi waxa ku jiray in ninka iyaga soo muslima ee u yimaada rasuulka inay dib u celiyaan rasuulka isagoo kaleey salaatu wasalaam ixtiraamaya heshiiskii uu gaalada la galay ayaa dadkii hadda gaalada ahaa soo muslimay ayuu dib ugu celinayay Umar bin Khattab sidoo uga carooday waa tii la ogaa halkaas uu heshiis ka gaaray qadarinteeda Faysal hadaanu isagu qadarinaynin heshiiskii waa wax sharciya wuxuu bedeli karaya maaha madaxtooyadana looga yeerin maayo cid musharax u noqonaysa xisbiga ucud waa wax go'aan ummadeed weeyaan waa wax dhacay weeyaan anuguna meel allaaliyo meel aan tagayana ma jiro Cabdirashiid Xasan Mataano waa saaxiibkay waxa uu ka hadlayna waa runtii weeye waan ku waafaqsanahay go'aamadii waxa ila ka hadlay kuma waafaqsanaysa inuu xisbiga ka carro inuu la dagaalamo ayaan filay oo ilaa all the way la socdo ayaan jeclaa ku eedayn maayo waa saaxiibkay shakhsi wuxuu leeyahay hami buu leeyahay sidoo doonu sameyn karaya laakiin waxaan leeyahay waxaan ka jeclaa in dalkan wixii aan doonayno inaan ka bedelo inaanu tareenkayga degine ilaa all the way la socdo ilaa haddana daanu saxaafadu maan ka maqlay uun iscasilaadiisa laakiin wax waraaq uu soo gudbiyay anu ilaa hadda ma hayo marka markuu qofku waraaq uu soo gudbiyo ayuu bad jawaabteeda siinaysa ilaa hadda anigu markuu jawaabta ii keeno isagoo warqadda ii keeno ayaan jawaabteeda Cabdirashiid anta ka bixin doonaa iyada laakiin Cabdirashiid waa nin wax badan soo gashay xisbiga ucud ninkana in laga dafiro maaha wixii uu gashaday xisbiga isaga soo saaray xisbiga qaybtiisa galbeed haday noqonayso awdal iyo selal xoolihiisa iyo maalkiisa buu ku bixiyay sida anigu ugu bixiyay sida rag badan oo musharaxiina oo xisbiga ka tartamay ay ugu bixiyeen ay guriyahooda ugu iibiyeen Faysal Carwaaba inuu kaliya aftuubto waxa aanu isagu ku tabcin ka ogolaan mayno kana yeelin mayno maanta waxa jirta waan baa jirta oo aan ka mid sugayna waantaas waxa way mid xisbiga gudihiisa ka socota iyo mid dhaqan ah oo iyaduna socota waqti baan siinayna waqtigeeda ayaan siinayna halkii aan Cabdirashiid ku kala hadhayna waxa ahayd anu halkan lahaa war waqti aynu siino oo aynu sugno oo yeynaan degdegin Cabdirashiidna uu doonayay inaan bahasha aynu maxkamad markaba aynu geeyno oo sharciga la tiisano anoo waxaan lahaa war sharciga lama gaadhin horta bal waan ha lagu wado xisbiga ucud u aftuumnaan maayo shakhsi quraata waxaana ogaanaa hadallada deelqaafka oo gudoomiyay shalay toolo ka yiri saxaafadda hadallo waxaan u arkaynaa inay tahay garab og inay tahay baan arkaynaa oo isku halaynaysa madaxtooyada war waxaan leeyahay madaxtooyada iyo qolooyinkan kulmiye ee iyagu tartanka ka baqanaya ee aad ogeyd wixii ka dhacay xisbiga kulmiye doorasho mooyane calaamad saar buu ahaa wixii ka dhacay la ogaa ayaa haddana maantana ay soo farageliyeen xisbiga ucud oo ay ku wadaan
dhibaatada inta leeg xisbiga wadanina uu nagu daba jiraa laftirkiisu dalkana la dooni maayo in doorasho ka dhacdo tartan xalaal ah waxa la doonayaa in la iska afduubnaado marka dambe ay sidaa isaga qaataan laakiin shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda jecel ayaa anagu aan isku halaynaynaa waan u dhabar adeegaynaa waxaan xasuustaa bariga hore anigu suugaanta waan igi tirin jiray intii aan siyaasadda soo galay ayuun baanan suugaanta aanan deyn laakiin bari aan suugaan tiriyay waxa ku jirtay doqonka dar yeeshay inta docdaadii gacan dabacsa soo biday adna dadaalkii inta adduunyaha haysiyo darkii iyo xareedii daacadnimo ku siisay dabadeed ka sii daray markii uu dabareeyay doogii xareedii xoolaheena daaqsaday daryeelkuba ha joogay waxa uu yaan kugu tarinay dardar iyo awoodii adigu kugu dul tuuray inuu qaniyo kugu duro damirkiisu iyo dambigaasi ka galay kaasaa u sii daran abaal dawra waasid waxaan leeyahay Soomaaliland meel xasaasi ah maraysa waxa la marayaa in la doonayo in xisbiyadii musharaxiin loo sameeyo laga soo dhaadhaabay madaxtooyada oo waraaba u taaga oo nimankii musharaxiinta saddexda sanadood musharaxiinta ay ku soo halgamay ee loogu codeeyay in la yiraahdo waa la idin dhacayaaba toos baba la idin dhacaya maalin qaaween oo Friday night robbery war wax loo dul qaadan kara meel xasaasi ah la maraya laakiin aanu ka yeelimin waanu dagaalamayna halka ugu dambaysa aynu la gaadhayna waxaan uga digayaa xukuumaddu farahan ay kula jirto xisbiyada kula burburinayso ee lacagta mar walba ay dhabar ka soo taabanayso madaxtooyada ku soo siinayso xisbiga waa dhisaynaa haddii hoggaanka uu naga xumaado xisbigu oo sidaa lagu qaban waayana waxay nagu kalifaysaa inaan anagu musharaxiinta iyada anagu aan xisbigii iska dhisano xafiisyada iyada dhisano campaign-ka iyagii bilowno hawshadeena aan qabsano inta xisbiga ee nala shaqeynaysan ay nala shaqeyso sida uu Faysal Cali Waraabe u yahay gudoomiye oo sharcigu maxay ayaana musharax uga ahay waana taa cadeynteedii isaga laftirkiisii ayaana saxay ninkii shalay idin ku lahaa wala tartamaya tartanka la gelaya waa maxay bal ka warram haddaan idin yiraahdo kulmiye doorasho galay haddana dib meesha Muuse bixi loola tartamaya meesha lagu haysta taasay ka dhigantay xisbiga wixii shalay lagu hadlay waxaan leeyahay damiirkeenu ummadda Soomaaliland ha toosto maanta waxaasi hadday nagu hirgalaan oo inagu socdaan wallahi meel fog baa la inageynaya shacabka Soomaalilandna waanu u soo noqon doonaa wax badan baan u fidiiman doonaa war xisbigana ha laga daayo wareerka xisbigana wareerka ha laga daayo taageerayaashana waxaan ugu ballan qaadayaa inaanu Jamaal Cali Xuseen ilaa maalinta ugu dambaysa tareenka ninka saaran inuu yahay cid uga degta mooyaan inuu isagu aanu ka degaynin tareenka inay ila joogaan baan doonayaa in halgan aan ila galaan baan doonayaa in cidda xisbiga joogta ay halgan ila gashaan baan doonayaa goray xuquuqleyntan in laga naxamaha in badan baan soo samirnay in badan baan soo dhabar adeegnay siyaasaddu waa dhabar adeeg waa lagu weerarayaa waxa aan doonaynaa waa madaxweyne waa xil madaxweyne adkaysi fara badan baan laga doonay waxaan leeyahay oo aan ku soo gabagabeynayaa ilaahay Soomaaliland ha barakeeyo diyaar baan u nahay anagu inaan dalkan u shaqeyno dalkan inaan ka badbaadino min shar habaabkan uu ku jiro iyo fawdadan uu ku jiro imika uu ku jiro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii su'aalana diyaar baan u nahay